السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxay idintaaba wanaagsan soo dhawaada ku saliya xabiibka sallallahu alayhi wasallam. haddii aad fiidiyogan daawanayso waxay ka dhigan tahay inaad u diyaar garowday isbedelka nolosha iyo la jaanqaadka sanad cusub oo noo dhalanaya insha Allah. sidaas darteed waxaad joogtaa meel kugu haboon iyo muuqaal ku haboon inaad daawatid iyo waqtigiisa. maanta waxaan ka hadlaynaa 5 dabeecadood oo awood leh oo ay tahay dhalinyarada sanadkan dhalanaya inay bartaan oo ay ka faa'iideystaan. dabeecaddan waxay asaasi adag u noqon doontaa in aad hagaajiso wixii ka halaysan haddana sanad maadaama sanad cusub oo dhalanaya aad u diyaar garowdo oo 2025 dhammaadkiisa aad noqotid qofka aad maanta tahay qof ka duwan. dabcan diyaar ma u tahay isbedelka nolosha oo ma doonaysaa inaad bedesho sanadkan dhammaanaya dabeecadaha aad leedahay ood u bedesho dabeecado wanaagsan? jawaabta haddii haa tahay nala joog oo muuqaalka nala daawa insha Allah. intaananse u gelin muuqaalka meeshaad naga daawanaysaan ama channelka naga daawanaysan ama Facebook waa Xasan Tiin Bade. anaguna waxaan ahay Xasan Cabdi Dheere. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir, haddii aad hore nala joogtana like-to waana dhiirigelisaa waana na dhaqaajisaa. aan ku bilaabno dabeecadda koowaad, horumarinta nafta bini'aadamka. adduunyo mashquul badan, akhrisku wuxuu u yahay joojinta ama daminta badhanka leyrka laga shido kale. qaado buug noloshaada bedelaya ama ku baraya xirfad cusub ama ku siinaya aragtiyo cusub. bilow si tartiib ah oo akhri 10 page maalin walba. noloshaada waxaad arki doontaa inay isbedesho muddo ka bacdi. 10 page waa 5 baal oo qur'aana oo ah jus halfkiis. bal ka fikir sanadka dhammaadka sanadka soo socda haddii aad akhrisid maalin walba 5 baal oo qur'aanka ah 6 mar ayaad dhammaysay qur'aanka kariim. haddii ay tahay buug iyo wax la midana waxaad akhrinaysaa 15 buug ilaa iyo 10. akhrisku waa aqoon. dabeecadeenna labaad, samey mahadnaq. korriinka shakhsiyadeed ee 2020 nolosha waxay noqon kartaa mid adag gaar ahaan xaaladaha hadda jira. saas daraaddeed isku day inaad mahadnaq u samaysid dadkii hore oo horey wax ku soo taray iyo kuwa hadda kula jooga ee haddaba wax ku tara intaba. maadaama nolosha ay adkaa karto waqtiguna uu adkaa karo, ha ilaawin inaad dadka u mahad celiso oo waalid ama walaal inaad u mahad celiso. mahad celintu waxay maskaxdaada u jihay kartaa dhinaca fiican, waxayna si buuxda uga qayb qaadan kartaa bedelka adduun aragga ama aragtidaada maskaxiyan iyo badaniyan intaba. subaxii ama habeenkii qor 3 arrimood ama 3 walxaad oo noloshaada adigu ka shakhsi ahaan aad ugu mahad celinayso, ha yaraadeen ama ha weynaadeen. sababtoo ah markaad naftaada u mahad celisid waxaa kugu soo dhacaya ama aad ogaanaysaa ama aad xasuusanaysaa inaad u mahad celisid ilaahay ku abuurtay. waxaa la dhahaa mahadnaqu wuxuu nafsadaada iyo maskaxdaada u jiheeyaa dhinaca wanaagsan, wuxuuna ka qayb qaataa in aad mar kastaba diiradda saarto waxyaabaha dhab ahaanta adiga muhiimka kuwa ama annaga muhiimka noo. dadka badankood waxay daba ordaan ama aan daba orodnaa waxyaabaha naga maqan, laakiin kuma shukrino waxyaabaha annagu aan haysan. caadada saddexaad, jirkaada ama noloshaadu waa waxa ugu weyn ama gaariga ugu qaalisan oo aad haysatid inta aad noosha. isku day inaad wanaajidid jirkaada iyo noloshaadaba intaba. ugu yaraan maalintii 30 daqiiqo ilaa 40 daqiiqo samey jimicsi sida yoga, socod iyo wixii la mida. ha ilaawin waxaad jirkaada aad geliso sidoo kale oo ah nafaqo, inaad biyo badan cabtid, inaad qudaar ku darsatid cuntada aad cunayso iyo wixii la mida. dabeecadda afaraad run ahaantii uguna muhiimsan ayaa waxay tahay waqtiga aad haysatid.
baro sida loo xakameeyo waqtiga oo looga miro dhaliyo iyo sida loo kala maamulo howlaha maalinlaha iyo asbuuclaha waxay doonaanba ha ahaadaan. isticmaal qalab fudud ama ku qor liiska maalinlaha ama asbuuclaha ah amaba barnaamijyada sida Notion iyo Google Calendar kuwaasoo kaa caawinaya in aad si maalinle ah ama asbuucle ah aad ula socotid si dhow howlaha adiga muhiimka ku ah sida ay u kala muhiimsan yihiin aad ula socotid. haddaad subaxdii hurdada ka soo kacdid ka bilow howlahaada kuwa ugu muhiimsan adoo kore u qortay. ha ku luminin saacado fara badan si macno la'aana inaad u dhex socotid aaladda internetka. xusuusnow maanta sida aad waqtigaaga u xakameydid waxay go'aaminaysaa biri shaqadaadu meesha ay gaarto ama meeshaad ka bilaabi. waqtigaad maanta aad beerdareydid wuxuu xugminayaa guushaada ama guuldarradaada berito. aqoontuna waa awood. dabeecadda shanaad ama ugu dambeyda waa dabeecado wanaagsan oo dhallinyarada iyo dad waaweynba looga baahan yahay. dadka aad la joogto waxay saameeyaan maskaxdaada, dabeecadaada iyo wax soo saarkaada intaba. raadi saaxiibo wanaagsan, la taliyayaal wanaagsan oo noloshaada u hagaaji kara ama u qaaday kara dhinaca horumarka. haba ahaato bulshada internetka kuwaas oo kugu dhiirigelinaya inaad yeelatid han sare, howlkarnimo iyo wax soo saar. xasuusnow oraahda waxaa tahay isku celceliska 5 qof ee aad la joogista badan tahay ama aad markasta la joogtid ayaad noqotaa adigu. dooro oo si xigmad leh u dooro dadka aad la soconayso. ogow haddaad dad liita la socotid adiguna waad liida doontaa. haddaad dad sarreeyo oo wanaagsan la socotidna adiguna waad sarreyn doontaa. waa 5 dabeecadood oo bedeli karta noloshaada oo aad ku baran karto 2025 laga bilaabo maanta la joogo ilaa 2025. 5 dabeecadood waxay bedeli karaan noloshaada oo u qaaday karaan dhanka wanaagsan. hadda adiga ayaa jooga ama maanta ayaaba jooga dabeecadda ayaad jeclaa lahayd inaad bilowdo. dabeecadaadse bilaabi doontaa. fadlan nagula wadaag dhanka commentiga ama faallooyin. haddii uu muuqaalkan wuxuu kugu dhiirigeliyey waxaan kaa codsanayaa inaad nagu soo biirto, like-na noo saarto dhanka Facebook ama dhanka YouTube-ka inaad naga daawanaysaa. aan si wadajir ah u korno hal caado markiiba mar dambe aan kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadi.